miskaad waxaa ka soconaya sidii loo wada oga howlgalka Hilaac ee ciribtirka argagixisada Daesh oo maraya gabagabadiisii gaar ahaan wajigiisa saddexaad maalmadii Jimcaha ciidamada difaaca dawladda Puntland gaar ahaan guutooyinka koowaad labaad iyo saddexaad howlgal wada jira ayay ka fuliyeen taliska Meeraale oo ah kii ugu dambeeyay kooxaha khawaarijta argagixisada Daesh ay ku lahaayeen Almiskaad halkaasi howlgalkaasi oo ahaa soo afshirida wajiga saddexaad waa uu si toos ah ayuu markan u bilowday howlgalkaasi laba qaab ayuu isugu jiray mid dhulka ah oo ciidamada geesiyaasha difaaca dawladda Puntland ay goobo kala duwan ama jihooyin kala duwan ay ka galeen Meeraale waxaa sii dheeraa duqeynta oo iyaduna laba usii kala baxaysay taasi oo ahay mid saaxiibada dhanka cirka ka saacidaya howlgalka Hilaac Mareykanka iyo Imaaraadka oo duqeymo toos iyagu markaasi ka fulinayay Meeraale ay sameynayeen iyo duqeymo kale oo ay sameynayaan ciidamada iyagu laftirkoodu howlgalkan ku jira guutooyinka koowaad labaad iyo saddexaadba oo ku garaacay madaafiicda kala duwan iyo hubka daradooriga u dhaca iyo qoryaha tiiraha dheerba howlgalkaasi saaca waxa la yiraahdo subaxnimadii ayuu xilli hore Jimcaha ka bilowday Meeraale guulo waaweyn ayay ciidamadu ka gaareen halkaasi waxa lagu dilay in ka badan 40 ka tirsan kooxaha ka daran ee khawaarijta argagixisada Daesh waxaa sidoo kale ay ciidamadu ku qabsadeen hub noocyadiisa kala duwan oo isugu jira dishiikayaasha qoryaha tiirada dheer ee sniperska loo yaqaano oo ay ciidamada la beegsanayeen iyo sidoo kale hubka waxa la yiraahdo akayaasha iyo beekamada intaba waa la qabtay waana la laayay ragii watay waxa guul ah in meeshaas uu yahay tog ceelal tiro badan ku yaalaan oo ay gabaad ka dhiganayeen goodad iyo buuro dhaadheer oo ay fuulayeen inta badanna guulaha ay ciidamadu gaareen waa ay kala wareegeen ceelashii shalay oo dhan ah oo ama maalintii Jimcaha ceelashaasi ciidamadu waa ay tacabayeen haatanna dushooda ayay intooda badan ay ku sugan yihiin oo ay joogaan gacantana oo ay ku hayaan waxa dhiman oo kaliya waa in la sifeeyo kooxahaasi oo si rasmi ah goobtaasi ay noqoto goob ka caagan meelaha yaryar oo ay markan ku dhumaaleysanayaan oo ciidamadu xogtooda iyo waxa la yiraahdo ay og yihiin waa haddii Ilaahay ka dhigo waa laga saarayaa waxa habeenimada xalay soo dhacay markaasi howlgal ay rabeen in kooxahaasi ay ku soo qaadaan ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland gaar ahaan guutada koowaad weeraro ay rabeen markaasi inay ku baajiyaan howlgalka socda ama ay markaasi taaka ugu dhigaan ayay isku dayeen inay soo qaadaan waxaase guul ah in dhammaanba ciidii weerarkaasi soo qaaday ciidamada geesiyaasha difaaca Puntland ay markaasi gacantooda ku baxeen oo ay laayeen 6 ka tirsan kooxaha khawaarijta oo qaybtooda kuwa qaraxyo ku xidhan ay hayeen oo isqarxiyay ayaa markaasi ku nafwaayay halka intii kalena ay farxad maadaama xilli dambe ay ahayd oo habeenimo ah saqdi dhaxa oo aan markaasi ay suuragal ahayn in la ceyrsado ay markaasi goobta ka farxadeen marka howlgalku waxa bilowday dhamaystirka wajiga saddexaad waa uu soconayaa toddobaadyaddan iyo maalmo inta uu rabo ayuu qaadanayaa bilo ayuu qaadan karayaa waxaan u sheegaynaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Puntland markaan ka hadlayo howlgalka iyo saacadaha uu qaadan karo in uu noqon karo waqtigiisu mid dheeraan karaya ama uu soo gaaban karayo labadaba waa ay noqon kartaa balse howlgalkan wajigiisa saddexaad gabagabadiisii ayaa markan bilowgeedii si rasmi ah loo galay sida ay saraakiishu ila wadaageenna howlgalkani ma aha mid joogsanaya ilaa iyo taliskaas guud ahaantii iyo guud ahaanba Almiskaadba laga sifeynayo firxadka kooxaha taasidan khawaarijta argagixisada Daesh Meeraale wali qaybay kaga hareen miya wax yar ayay markaasi kaga harsan yihiin balse ciidamadu guulo waaweyn ayay gaareen waana ku sii soconayaan ilaa kan ugu dambeeya gacanta lagu soo dhameeyo marka waxa la yiraahdo jaamacow adiga iyo dadka ina daawanayaba waxaan xusuusinayaa in ay nooga barteen in aanu soo gudbino muuqaalada iyo sawiraanta hadda anigu waxaan kala hadlayaa waa dusha sare ee Meeraale halkan anteenada ayaa daciif oo aad ayay ciriir ugu tahay looma suuragelaysa marka inaanu waxa la yiraahdo sawiraanta iyo muuqaaladaba aan soo diro balse intii ka dhacday xalay soo PMBF ama ilaahda guuta koowaadba waa ku aragteen baraha bulshada idin sheegnaa dila ka dhigo marka dib ugu noqono falisadii iyo xarumihii waaweynaa ee ciidamadu ay ka soo duuleen in aan dhammaan soo baahin doono muuqaaladaas keedkoodana aan haatan u hayno